qaar ka mid ah odayada dhaqanka siyaasiyiin culimaa u diin iyo dhalinyaro ka soo jeeda beelaha dega gobolka Awdal ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ay ku beeniyeen in beeshoodu ay ku beertay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye qaar ka mid ah beeshooda oo horay shir jaraa'id u qabtay inay ku beereen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxayna dhamaantoodba ay sheegeen in waxba kama jiraan ay tahay ku beerista xisbigaasi kulmiye ay ku beertay beeshoodu waxayna intaasi ku dareen in beeshoodu ay weli ka tirsan tahay xisbiga ay horay uga tirsanaayeen oo ahaa xisbiga mucaaradka ee wadani waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa ka cudur daaranana maanta oo ka hadlanaa hadalkii qolada ka soo baxay inaanay waxba ka jirin waxaanu sheeganaa dalka iyo dibadda hadalkii ka baxay dadka inaanay waxba ka jirin ama makaahil ahaadaan ama ummadda Soomaaliyeed ee danaynaysa ha ahaadaan maanta halkan waxaan iskugu nimidnay inaan taageerayaal u nahay xisbiga wadani ay u tahay beesha makaahil dheere oo midaysan oo aanay waxba ka maqlin dad baa yidhaahda markay dheere waa laamo badan oo midba meel bay ka baxeen war waxaa waxba kama jiraan dadka meelaha ka hadlaya la sheegayo dee annagu ma garanayno wax suldaaniya wax aqlo oo naga maqani ma jiraan waxaan leeyahay waddanka waa la wada leeyahay dad beeshana waxay sheegatay oo ay dhammaanteed isku raacday inay tahay muxuu ahaa wadani marka sidaa darteed dee waa fikirkooga in loo diidana maaha in qaar ka mid ah la caburiyo haddana oo hanjabaadiyo waxay ma soconayaan waddanka waa la wada leeyahay kulmiyo intaad xukunka hayso dadka xadhiga ka daa hanjabaada ka daa beesha makaldheere kuwaasoo ujeeddadoodu tahay inay beeniyaan dadafeeyaan hadal ka soo yeedhay waxoogaa beesha ka tirsan oo ku jira xisbiga kulmiye qaybta beesheeda kaga jirta hadalkaas oo ahaa in beesha makaahil dheere aqoon-yahan waxgarad culimaauddiin dhammaantood ay yihiin kulmiye haddaba waxaan caddaynaynaa una sheegaynaa ragga madaxda waa kulmiye inayna waxba ka jirin been abuurka waana nasiib darro waxayna beeshu isku ogeyn in la adeegsado qayb tolka dhinac ka ah haddaba waxaan bulshada mar labaad u sheegaynaa inayna beeshu ahayn maanta wadani ee hore ay u ahayd ayna berber taagan tahay hiil iyo hooba la garab taagan tahay xisbiga wadani annagu haddii aan nahay dhalinyartii makaldheere oo anafkooga ku hadlayo waxaan daba joognaa oon ku daba faylsannahay halka odayaashayada cuqaashayada salaadiintayada iyo siyaasiyiintayadu ay nagu hogaamiyaan baan nahay si kastaba ha ahaatee shirarka jaraa'id ee qabanayaan qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal ayaa maalmihii ugu dambeysay iska soo daba dhacayay iyagoona ku bayaaminaya beel kastaba xisbiga ay ka tirsan tahay waa Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buuri telefishinka caalamiga ee Ariel TV magaalada Boorama.